السلام عليكم. isu soo noqod wanaagsan. baraha bulshadu ku wada xiriirto sida Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, Snapchat, TikTok, LinkedIn iyo waliba midka hadda maalmahan xoog naga haysto ee Clubhouse. Dhammaantood waa bar loogu talagalay in wax lagu faafiyo ama wixii lagu faafiyay la daalacdo lagana falcelin karo walibana la sii faafin karo. Su'aashaas waxay tahay haddii aan Soomaalinahay sidee baan wax ugu faafinaa ama wixii la faafiyay uga falcelinaa ama xitaa u sii faafinaa ma ilaalinaa shuruucda dhaqanka hidaha iyo waliba hannaankiisu banaa ee Soomaalida lagu yaqiinay 20 sano ee ugu dambeysay horumarka uu aadanaha sameeyay waxa qayb weyn ka ah sameynta baraha ay ku wada xiriiri karaan bulshooyinka ku kala nool dunida daafayada kala duwan taasi oo fududeysay inay dunida noqoto sida hal qol oo kale si kale haddaan u dhaho adoo jooga tuuladaada inaad ogaan karto ama aad la socon karto waxa ka dhacaya dhul aad kaaga fog waliba aad aragti ku darsan karto ama aad wax ka baran karto macallin aan ba ku aqoon ama xitaa aad adigu wax bari karto arday aadan weliga la kulmin muhiimadeyda maanta ma ahan faa'iidada ama qasaaraha baraha bulshada lagu xiriiro ay leeyihiin inaan ka hadlo laakiin kaliya waxaan rabaa inaan isku dayo inaan bal wax ka dhaho sida ay ummad ahaan noo saameeyeen barahaas bulsho ee kala duwan haddii aadan ogeyn aan ku xasuusiyo Soomaalidu waxay ka mid tahay wadamada ay dadkeedu inta ugu badan dhalinyarada yihiin taasoo ka dhigan inaysan nagu adkeen la tacaamulida aaladaha kala duwan ee lagu wada xiriiro sida laptopka mobilada ama xitaa kombiyuutarada caadiga ah balse inaad aaladan adeegsan karto iyo inaad si sax ah u adeegsato waa laba arrin oo kala duwan ummad ahaan waxaan ahayn kuwa ka asturan dunida inteeda kale oo iyaga dhagaha bay naga maqli jireen annagana kuweena dibadaha tagay mooyee cid kale wax dunida ka socda shaqo kuma lahayn oo BBC-da nooma soo dhaafi jirin balse maxaa dhacay markii ay soo ifbaxeen baraha bulsho ee lagu wada xiriiro maalin dhaweyd waxaa muuqaal ila wadaagay mid ka mid ah saaxiibada aan aadka isugu dhownahay isagoo i weydiiyey bal sida uu muuqaalkaas ila muuqday iyo waliba wixii aan ka dhihi karay waana tan igu dhalisay inaan si guud uga hadlo abkan cusub ee loo yaqaan Clubhouse isaga dhanba wuxuu caan noqday wixii May 2020 ka dambeeyay macnaha wali xitaa maba sanad jirsan waan ka ilaabay abkan wuxuu aad ugu egyahay Paltalk cidii taqaanay kuna darso system ahaan waa iOS ha ku wareerin haddaad sideeda oo kale reer Android tahay abkan waxaa loogu talagalay in aragtiyo la isku dhaafsado laguna martiqaado dadyowga caanka ah sida siyaasiyiinta wadaadada ganacsatada iyo waliba cid waliba oo muhiim ah waana sababta ay qolooyinka isku hayo siyaasadda dalka ugu yaaceen bariyihii dambe si ay halkan ugu gudbiyaan ololahooda siyaasadood uma socdo kuwaasi dhalinteena maxay meesha ku hayaan qolal waxaa jira dhalinyaro samayso isuguna yimaadaan dhalinyaro kala duwan mid baa dhexdhexaadiyo iyaguna ayagoo rag iyo dumarba leh bay si aan gambad lahayn isugu kiisaan aflagaado waliba tii laga xishoon jiray ah fiidiyowga uu ila wadaagay saaxiibkay wuxuu banaanka ii keenay sida dhalinteena ay ugu baraarugsaneen khatarta ay leedahay teknolojiyadda sheekadu ma ahan geedkii taraqa lagu hoos dheeli jiray ee wixii la isdhaho halkaas ku ekaanayeen halkani waa bara bulsho waa la duubayaa codkaada ama muuqaalkaada waa la faafinayaa hadhowna waxay sababi kartaa khatar badan waaba haddii uu jiro dareen ama damiir ay u muuqato khatartaas toddobaadkan sidoo kale waxaan arkayay muuqaal wiil aan u malaynaya reer Burundi uu faafiyay kaasoo ay qof magac gabar Soomaaliyeed leh ku weydiinayso su'aal ah ma bani aadam ayaad tahay xitaa haddii aan anagoo Soomaali ah qofkaas u cudur daarno oo aan dhahno wayba kaftamaysay sidee bay 1.6 milyan oo qof oo muuqaalkaas daawaday uga dhaadhacaysaa dad midabta koor yaqaana maahin inaan ismidabta koorno dhexdeena dunida way maqli jirtay kaliya laakiin hadda barihii bulshadan la nimid waliba afafka aan labada xabo ka baranay ayaan ugu sheegnaa dadka habdhaqankeena sida uu u ogyahay ugu dambeyn waxaan aad u jeclaan lahaa qof waliba oo leh karti ama hibo oo wax ku gudbin karo maanta inuu ka qayb qaato sidii sare loogu qaadi lahaa garaadka dhalinta dadkeenana loo bari lahaa khatarta ay leeyihiin baraha bulshada iyo waliba sida ay dhaqsi ugu faafi karaan waxyaabaha dhaawici kara dhaqanka ummad dhan waaba haddii dhaawac noo noqdee faalladu ama commentiga waxay ka turjumaysaa aragtidaada ogowna dadku shakhsi ahaan kuuguma fiirin doonaan dalkaad ka soo jeedo ayaa lagugu lamaanin doonaa war baraha bulshada sidaan tusaale xun uga ahayn waan daalnay bal dhaqankii reer iska dhiciska iyo isfaquuqida dadka dhan hawada barina adigana wad ku mahadsan tahay haddaad intaan ila soo gaartay intaan muuqaal kale dib ugu kulmi doonana waxaan ku rajaynayaa waqti aad u qurux badan au revoir